halkan oo ah xarunta baarlamaanka maamul goboleedka Puntland waxa labadii saacadood ee ugu dambeeyay uu shir uu albaabadu u xidhan yahay uga socday madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo baarlamaanka maamulka Puntland shirkaasi oo la sheegay in lagaga hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo safarkii uu madaxweynuhu kaga soo noqday Soomaaliya afayeenka madaxtooyada maamulka Puntland jaamac Dabaraani oo warbaahinta kula hadlay halkan ayaa ka warbixiyay shirkani iyo waxyaabihii uu daarnaa madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni oo weheliyo madaxweynaha ku-xigeenka dawladda mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash waxa ay maanta hor yimaadeen golaha wakiilada ee dawladda Puntland oo hadda aan ku sugannahay oo dabcan ay kulankana ku weheliyaan gudoomiyaha golaha wakiilada ee dawladda Puntland gudoomiye Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ee dawladda Puntland mudane Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan iyo gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee golaha wakiilada ee dawladda Puntland gudoomiye ku-xigeenka labaad mudane Ismaaciil Maxamed Warsame xubnaha golaha wakiilada ee dawladda Puntland kulankaasi oo dabcan sidii aad qaybtii hore joogteen ahaa kulan albaabadu u xiran yihiin waa kulan wada tashi madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni waxa uu la wadaagayaa golaha baarlamaanka dawladda Puntland warbixin ku saabsan safarkiisii Muqdisho shirarkii uu ka qayb galay xaaladda uu dalku marayo iyo marxaladda uu dalku wajahay waxa uu kulanku yahay kulan wada tashi ah kulan kala warqaadasho ah kulan tala wadaag ah oo dabcan warbixinta kadibna ay xildhibaanadu madaxweynaha weydiiyeen su'aalo wada tashi iyo soo jeedin iyo aragtiyo kala duwan oo dhammaanba ku saabsan xaaladda guud ee uu dalku marayo dabcan tani waxay qayb ka tahay kulamadii uu madaxweynuhu waday tan iyo markii uu soo laabtay waxaad ogtihiin inuu xubnaha golaha wasiirada uu kulan la qaatay maalintii Khamiista shirkii toddobaad la ahaa oo looga hadlay xaaladda guud ee dalka uu marayo geesta kale jaamac Dabaraani waxa uu ka warbixiyay shir habeenkii xalay ahaa ka dhacay madaxtooyada oo isagana uu sheegay in laga hadlayay arrimaha masiirka maamulka Puntland waxa ogtihiin in xalayto uu madaxweynuhu qasriga madaxtooyada dawladda Puntland Garowe uu kulan kula qaatay mas'uuliyiin hore oo xilal ka soo qabtay Puntland siyaasiyiin waxgarad aqoon-yahano iyo ururada bulshada rayidka ah wada tashiyadaas ayuu kulankana qayb ka yahay insha Allah marka wada tashiyadu waa sii socon doonaan qaybaha kale ee bulshada haray iyo dadka kale ee wax lagu tuhmayo iyo waxgaradka iyo dadka tabar iyo talaba kordhin kara marka ay madaxdu la kulanto waxa mustaqbalka dhici doona in Puntland ay soo saarto mowqifkeeda ku aadan muddo kororsiga aan sharciga ahayn uu sameystay madaxweynihii dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasi oo Puntland mowqifkeeda kama dambaysta ay maalmaha soo socda ay ka soo saari doonto Ali Maxamed Jaamac Ali Fahad telefishinka Garowe